mas-uuliyiinta dekeda berbera ayaa ka hadlay hay-adda WFP ee cunada adduunka u qaabilsan qaramada midoobay oo keentay dekeda berbera markab sida konton tan oo sonkor ah taasi oo qoyan isla markaana dhacaysa bisha fooda inagu soo haysa ee February ee 2011 waxaana ka hadlay oo halkaasi kormeer ku maray mas'uuliyiinta dekeda maamulaha customka iyo waaxda quality controlka maray ku-xigeenka dekeda berbera Umar Abukar Jamac oo waramayay on cable TV ayaa sheegay inaanay ka baxaynin dekeda oo aanay bulshadu lagu sii deynaynin in ay cuntadani xumaatay isticmaalaan waxaanu yiri dekeda customerska iyo quality control dhaqso isugu imanaya sonkortan qoyaanadu ka muuqda taariikhda dhacaysa bil baa hadhay marka madaxii WFP wargeysa ka imanaya ayaa la sugaynaa waa laga tashanayaa waxa isaguna halkaasi ka hadlay mas'uul ka socday ilaalinta badeecooyinka oo sheegay in la eegi doono isla markaana la baaritaan la marinayo sonkortan qoyan ee dhacaysa bisha fooda inagu haysa oo laga gaarsiin karin qaybinteeda bil baa hadhay dhicitaankeedii the date of expire waxaan ku heshiinay inaan stoorada dhigaan dekeda ka bixin sambalna waanu ka qaadaynaa markabkan oo lagu magacaabo MV Masar Tide ayay qaybo kamid ah sonkortani hoostiisa yaaleen isla markaana hay'adda WFP oo aanu isku daynay inaanu wax ka weydiino cunadan xumaatay ee qoyan isla markaana dhacaysa bisha fooda inagu soo haysa oo aan laga gaarsiinayn qaybinteeda ee ay bulshada uga dhigayso mucaawanada ayaanay noo suurtagelin inaanu wax jawaab ka helno xukuumadda Somaliland ayaa looga fadhiyaa inay kaantarosho badeecooyinka ay keenayaan hay'adaha WFP ee noocan oo kala ah Cabdikariim Saciid Saalax on cable TV Berbera.